أحمد سكي وحير بقى وحكى لي يا شيخ الله ده أمل حالديس أنت ركع لين فيديو يربع دقيقتين هنا محلها
sheekh umal uu leeyahay marka videoga waxaan rajeynayaa inaad maqli doontaan wuxuu ku saabsan yahay dastuurka Soomaaliya horta macaan ma maqlayaa asxaabta ma maqlaysaan dastuurka Soomaaliya ku saabsan yahay horta walaalayaal intaan sheekha hadalkiisa daarin dadka noolayaasha dhan waxaa ku soo dhaca wax la dhaho isbedel diimahana waxaa ku dhaca isbedel sharciyadana waxaa ku dhaca isbedel qofku inuu isbedelana ceeb ma aha shalay meeshuu taagnaa inuu kasoo tago isbedelo waxaa keenta waxyaabo uu arkay ma garanaysaa waxyaabo badan baa keena ama wuxuu aqriyay wuxuu ogaaday oo ma garanaysaa diimaha dadku inay kasoo horjeestaana waxaa keena inay aqoontu dhismato inta badan taa ayaa keenta marka waxaa dhageysanaynaa shuqumal tusaale aan usoo qaadanayaa ama dhammaan wadaadada waxaa xasuusanaa wahabiyiintu markay bilaabeen kow waddanka soo galeen xadiis waxaa jirtay badan in sawirka dembi inuu yahay dembi haddaa xasuusataan waa inii daari doonaa fideoyaashaas sawir qofkii laga qaado ehlunaar inuu yahay sawir qaadaha iyo kan laga qaado iyo waxaasba inay xaaraam inay tahay ilaahayna maalintii yawmal qiyaame in uu dhihi doono naf hala soo geliyo sawirka okay maanta marka maxaa aragnay maanta wadaadadii saas dhahaya way nool yihiin ma dhiman ogaadaya qaar baa dhintay qaar baa nool ragga dhinta way dhinteen inaga daaya kuwa nool baynu ka hadlaynaa kuwa nool ragga ka mida waa aragtaa ayagoo sawir isku dhayga saas ku kala bixinaya iyo ayagoo dhoola caddaynaya wardi sawir iga qaada saxaabta markaan qoslay hadda dhac igu siiya ma garateen ayagoo caloosha saa u taagay iyo keliyaha iyo qamiisyo qaba iyo ayay sawirro iska qaadeen shalna waxay aaminsanaayeen inay sawirradu dembi yihiin haddaba maxaa dhacay marka xadiisti ma la masaxay xadiisti waxaa qabtay iyo miyaa laga tirtira buugtii carabta ma laga tirtira calaamad tusaale weeye lagama tirtirin waa way ku yaalaan xadiistaas iyo waxyaabaha lama tirtirin way jiraan laakiin dadkii ayaa isbedel qasab buu ku imaadeen waxaan cidna ma garateen way iska yimaadeen wadaadaduna dadkay ku jiraan sawirkii baa la iska qaadayaa video baa la qaadayaa waa lagu qasban yahay in la xareeyo okay bariga hore maxay aaminsanaayeen jeesara waxa la dhaho jeesara oo lagu dhegsada bes oo danu keentay in la iska qaado danu keentay oo ma garanaysaa oo ilaahay wax loo marmaro kaas laakiin wax kaloo sawir xaaraan buu ahaa waxa kaloo xasuustaan sawirada bariga hore dadka iska qaadeen dowladdii Soomaaliya markay jirtay iyo waalidiinteen markay wahabiyiintu yimaadeen waa la gubay oo waxaa la yiri waa dembi waa la iska gubay ma garanaysaan waxaa malinaya sheekhi baa daawanaya ilaahay oo na astur midna waaqow dembigeena dhaaf waa sheekhi waa lagu daba dhegnaayaa mahaanba waa iskaga daba dhegaynaa markee yaa axmed oo jira axmed wuxuu bixiyey wax la yaab leh marka saasaa dhacday sawirada mamnuuc bay ahaayeen okay haddaba shuqumal keliya waad kale caawa uma galayno waa laga yaabaa inaan u galno laakiin focuska waxaan saaranaa shuqumal baa saaraynaa dowladdii cabdillaahi yuusufiyey 2016 wuu fadwadii wuxuu fadwooday ummadda Soomaaliyeed ilaa maanta birta iska aqrinayso wuxuu fadwooday inay dadku gaala yihiin wixii dowladda taageera wixii raaca iyo wixii ka shaqeeyaba inay gaal yihiin oo dhiigooda iyo naftooduba bannaan tahay ayuu Sheekh Umal fadwooday waa fadwadii lagu hagalaagmay oo wiil iyo walaal isku waayeen hooyo iyo inankeed isku waayeen wiil aabe iyo gabadhiis isku waayeen
dadku qofba qofka kale uu bireeyay waa la ogaa Soomaali fiidiyoyaasha la hayaa fadwadiisii waa wada dhageysan doonaa maanta maxaa iska bedelay Sheekh Umal marka markuu dadku u fadwoodayeen oo iska qiiroonayeen wadanka waxa loo sameeyay wax la dhaho dastuur xeer af Soomaali baa lagu dhahaa xeer baa loo sameeyay hadaan qaldaneen xeer baa loo sameeyay xeerkaas iyo sharciyadaas bay dawladda Soomaaliya ku dhaqmaysay dawladda Cabdullaahi Yuusuf iyo maanta dawladda Farmaajo maxay ku kala duwan yihiin labadooda waxay ku kala duwan yihiin maxay tahay waxba ciidamadii waxa jooga Amazon oo Etoobiyaanka wadanka uu jooga waxa wadanka lagu dhaqmayaa dastuur shuqumalna bariga dadku gaalaysiiyay maantay waa wax yar ii kaadiya hal daqiiqo halkan wadaya wax yar ii kaadiya أجرى على كني أجرى جليل كوبري عدو من نورا جبوتاي لو كدا الله جبوتاي لو كدا ورهاس كويس قد ما تاه ورنتا وين كي قسلسيني allora sheekada aan ii wada marka Sheekh Umal dawladii hore Soomaaliya iyo dawladii hore Cabdullaahi Yuusuf iyo dawladan maxay kala duwan tahay waxba kuma kala duwan anagu aqli baan leenahay ummad Soomaaliyeed baan nahay ciidamada shisheeye oo Amazon way joogaan ciidamadii la dhahay waa gaalo way joogaan soo maxay tahay waxa u dhaxeeya Sheekh Umal hadduu bariga fadwooday oo dadku u gaalaysiiyay oo umadu ay isqarxiyeen oo qof bireeyay oo wiil Soomaaliyeed maanta way uu Farmaajo u taageeray hadduu Farmaajo iyo dawladdiisaan uu taageero oo ixtisaam ragga ku wada jira Sheekh Nuur Baaruud Sheekh Umal kaliya maahan ragga dhan waxay ka soo wada horjeedeen inay dawladdii Soomaaliyeed ay gaala yihiin murtadiin ay yihiin in la dilana ay banaan tahay allore maxay maanta ixtisaam maxay u taageertay way su'aasha soo ma ahayn haddii isbedel ku dhacay Sheekh Umal iyo groupka ixtisaam inay intay shacabka hor yimaadaan ay dhahaan war shalay waxaan galnay qalad ummadda Soomaaliyeed in aan fadwo ka soo saarno oo in la laayo ma ahayn arrintaa waan ku fududaanay waxaan bixinaynaa raali gelin wixii ahayd wax qalad ah dawladana hala taageero maantana waxaan nahay ummad Soomaaliyeed dawladuna waa in aan garab siinaa wadankana waa in la dhisaa sidaa miyayna dhaheen mayna ma dhihin qamiiskiisa dheeraa uu xirtay balaayo iska dhigay dawladii buu taageeray hoostuu ka taageeray waa ninkii codkiisa la hayo oo dhahaya dadka hala laayo dadka meesha lagu arko qofka Soomaaliya oo dawladda taageera waa gaal anigu marka waxaan ahay war codkan balaayo diqdiq ku hayaan iska xiray bulkaadi war naga tag anigu marka waxaan kamid ahay ama dadka badankooda daawanaya maanta waxaad kamid tihiin dadkii dawladda taageeray baan ahayn waayo haddaan ummad Soomaaliyeed waxaan u baahnay wadanku inuu dawlad helo waxa dawlado badan baa maaragtay dhisman waayay dawladda Cabdiqaasim markii dawladda burburtay ka bacdi dadkii marka la gaalaysiiyay baan ahayn oo loo fadwooday oo meesh lagu arkaba in lagu laayo ay banaanaayeen dadkaas oo manihin 2006 waa shalay meeqa sana ka soo wareegtay fadwadiisa 2006 bay ahayd imis sana ka soo wareegtay dawladda waxay ku dhisan tahay dawlad dastuurkii hore allor hadda waxa dhageysanayna hadalkiisa Sheekh Umal wuxuu leeyahay ayaa dhageysanayna bal dhageysta marka maantay fakarkii ma qaba in lagu maamulo shareeca waxa la dhaho
waddanka soomaaliyana qof kastoo soomaaliya waxa iska qiiroonin oo diin iyo wax baas ha u qiiroonin soomaaliya shareeco laguma maamulo waxaa ka dhaqma waxaa looga dhaqmaa xeer dadku ay samaysteen oo loo yaqaana dastuur oo qoran ma garateen horta taa aan isla fahanna walaalayaal soo wax shareeco ay shuqul ku leedahay ma laha soo dowladdii hore cabdilaahi iyo dowladda maanta farmaajo madaxda ka yahay oo ra-iisul wasaarahana qayri ka yahay waa isku mid dowladdii cabdilaahi madaxda ka ahaa iyo dowladdii iyo ra-iisul wasaarahana uu ka ahaa cali maxamed geedi same weeye ciidamadii baana jooga haddaba ciidamadii dadka lagu gaaraysiiyey dadka dartooda lagu dilay ayaa Sheekh Umar markuu Muqdisho tagay shalay waardiyeynayay oo kaalii amisom buu ku jiray yaa laga waardiyeynayay dadku shalay u fadwooday baa laga waardiyeynayay okay waa dhegeysanayna marka ma saarnaa مسألة قصة بسن أرت دستور وكعلة لكن دستور كعلة كل بأنتي لكاري كرو أود السامحه بمكلف لويه وحي أود ديدو تكاليف شريعة أبو لمدي هاي ومركزي ملازمي ما أنت واحد أكسون هاي عالم قال هاي صف أود بيكو هايستان إلهي ما أود له دولة وين الصومالي غير كيف بكحيوك بدن بان كل واقع كريم شريعة إسلام بان اسكو حكومين واقع حيالا إنو حلوقة يبصدوا لغا مرمان أيقون كل واقع بمجرد تدوذا دأهانا أي كرسي يمادين شريعة ولا ما بدلين به بعدوقتي وحيالي وحي كبعي صلى الله لكن waxaa la og yahay in dastuurka dawladda uu dimuqraadi yahay baarlamaan la jiro waa su'aal ka mid ahayd kuwii la weydiiyay dimuqraadiyadu ka mabda waa diin gaalnimo ah laana waa mabda caqiidadiisa wata oo akhlaaqdiisa wata oo nidaamka shuruucdiisa wata oo dawladdiisa wata oo ilhaad iyo diinta ka fog waa dimuqraadiya hada maqasho laana dimuqraadiya ma la yiraahdaa ديمقراطية وحل إلى هذا حكم الشعب للشعب بالإله شعبك أو حكومة أي الإله على جوده شعب أنت دمستر فيديوغا ديمقراطي سوء شرحي شغل الوارون والصح شعبك إصدارته وكسحيها dadka waxay doortaan qofkay rabaan qof samada laga soo hindisay ama nabi sheegta ama balaayo soo adinta uba timaado ma dhaxda anayna maamuliyo xoog laakiin dadka intii isku imaadaan rag iyo dumar waayeel iyo waxgarad cuqaal wax walba intii isku yimaadaan suldaamo iyo salaadiin ma garanaysaa ayaa waxaa loo qaadaa cod markaasaa waxaa la dhahayaa inuu hogaamin kara markaasaa qofkii loo garto dalka inuu hogaamin karo aqoon leeyahay ayaa la doortaa dadkaana u dhiiba dhahay hebelow haye madaxdeenaatee hore u soco talada hay oo wad wuxuu leeyahay baarlamaan xeerarka iyo dastuurka dejiya saas weeye dimuqraadi waa runtiis haddaba shareecada uu la rabo ummadda soomaaliyeed uu shalayna ugu fadwooday uu ku gaalaysiinayay oo uu ku laayay Sheekh Umar maxay tahay shareeco see wax loo maamulayaa marka shareecada naftirkeeda shareecadu nuuca ma lahan waa in wadaadadu isku tagaan ay qof doortaan ayagu markaas qofkaasna hadhow qofka kale oo ibaan doona waa dhaxaltooyo gruubkaas kaliya is aqoonsan baa ka soo baxa shacabku waxba ma doortaan talana kuma lahan tusaalana kuma lahan waa system dictator ah weeye shareecadu waa sidaa waxba ugama dawana dadka dictatorka afgambiga ku qabta dowladaha shareecadu waxba ugama duwana waa system noocaasa dadka wuxuu u qurxinayaa waxa weeye ummadda in la afgambiyo oo la qabsado oo ayaga la dhaho car hadla waa la libreynaya sidoo shal uu yiri hal qalo qofkii hadlaba waa gaal hala dilo marka aqligay rabaa inay maanta ummadda Soomaaliyeed ay dawladnimo ay wadaan ihtisaam ururkan ay horgeeyaan runtii waa aqligaas waana aqli maanta caalamka ka fog ummadda Soomaaliyeed xoog lagu xukumi karo meel xoog lagu xukumi karna ma jirto madaxweynahan hadda yimid oo hadda joogay rasuul saaruhu waxay ku yimaadeen si sharci ah baarlamaankana doortay codka baarlamaankana ku yimaadeen Soomaaliya ma gaarin waa dimuqraadi laakiin ma gaarin waxa la dhaho hal iyo cod abni darada jirta dartood yaana geey abni darada raggaana geey raggaan ma aragta
dhahaya ilaahay ayaa shareecadiisa in lagu maamulo ay tahay ilaahay muxuu Soomaaliya ku darsaday ilaahay waxba naguma darsan waxba nagu darsada ma lahan ummadda Soomaaliyeed baa waxay rabaan inay ku tashtaan 30 sano waxay dadku mar u diidayaan sawirada waan ka soo hadlay oo gabdhaha waxay u kala soocayeen dharkooda oo waxay diideen bangiyo in la sameeyo oo ayagu waxay sheegaan maahana wax kale waxay dhaheen waa xaaraan oo dadkii way qasbeen oo birtay ka asleen raggaasa marka waxay leeyihiin raggaasa maanta marka shuqumal maxaa ku dhacday asagii wuu fadwooday markuu fadwoodayna dadka maanta asagaa loo fadwooda marka maanta yaa u fadwooda marka waxa u fadwooda wadaadadii hore waxaa lagu haystaa xadiis uu leeyahay nabiga ayaa injir leh okay waxaa samaynaynaa kaas baan dhegeysiinayaa kaasaa lagu haystaa asaga wadaadka markaan runtii laakiin bal kaa intaan dhegeysiinin waan ku soo celin doonaa dhimala kane kaasaa lagu haystaa waa wada dhegeystaan qof kasta inuu dhegeysto uma baahna laakiin wax yar baan dhegeysiinayaa kaa naftirkiisa inuu akhriyo oo dhaho nabi maxamed waa soo asugu leeyahay injir buu lahaa banaanaduna ku kaadin jira waa shuqumal suu leeyahay weeye anuguma dhihiyaa dusha wax iga saaran in inkaarin ku dhacday asa wax ka aqrinaya marka shiiqu wuxuu ka aqrinayaa xadiis qoran weeye asaga naftirkiisa jeebkiisa kama keento waxa way qoran yihiin carabta waxaan qoratay inuu sameyn jiray sidaan oo saan ah carabta soo qoratay waxa lagu gaalaysiiyay marka fiir dhibaatada haysta wadaadada waxay isku gaalaysiinay oo isku leynaya waxa weeye ayagu waxay kitaabadan carabeed ka soo kala akhristeen arrin Soomaaliyeed ma aha sababtaas isku gaalaysiinaya asaga marka waa la gaalaysiiyo wax badan buu dadka gaalaysiiyo waxa la yiri dhiigiisa iyo naftiisa waa xalaal maxaadaradii ku qaban lahaa Muqdishona waa loo diiday adigu haddaa dhibaato dadku ku samaysid in lagu hor istaago way fiicanta Ali Dhuux muxuu yiri maxaa la dhahaa sayidkii markuu ka soo horjeeday sayidkii Ali Dhuux oo sayidkii laga guuleystay way Ali Dhuux sayidkii mar walba waxay ahaayeen maxaa la dhahaa waxay ahaayeen mucaarad lismina tusi jirin Ali Dhuuxna wuxuu ku dagaalami jiray sayidku wuxuu ku dagaalami inuu muslim yahay dadku ku xasuuqi jiray waxbana kama duwaneen fakarka Sheekh Umar oo wata maanta Ali Dhuux marka muxuu yiri sayidkii markuu jabay oo ingiriiskii waxa ka adkaadeen waa lagu digtaa ruux hadduu ku darnaan jiray bal dayay wadaadkii waa ka sii dabayshaday hadda ninkii shalay dadku u fadwooday maanta wax asaga loo fadwooday sheekada waxa ugu daleeyahay waa lagu digtaa ruux hadduu ku darnaan jiray bal dayay wadaadkii waa ka sii dabayshaday soo asagii baa la gaalaysiiyay waxa lagu yiri gaal baa tahay oo dhiigaaga iyo naftaada xalaala shalay uu ummadii 2006 ayuu dadka Soomaaliyeed yiri hadalaayo oo uu fadwooday fadwadii wiilash iyo gabdhuhu ilaa maanta socoto oo qarixi sooba aan ogeyn wixii loogta ka dhacday ya mi garateen ma adeeraya tolkayo waxaan ka wada Soomaaliyeed hadda Soomaali baa isku talnahay ilaa tolka la malihiye sida baa ku dhacday odaga shadaafaha qaada lagu yiri waa laga soo ceeriyay magaalada Muqdisho waxa laga baqaynaa amnigiisa in uu khalkhal magaalada geliyo qaraxya ka dhaco oo rag xagga jannada u socda hilfaa inay u laabaan asaga waaya shalay dad jannada u socda ku ballamiyay markaas dadka huf iyo waxa laga dhigay halaan jirin haddaba waxyaabuhu sameeyay maxaa ka mid ahaa waa ninkii dhurwaaga ummadda Soomaaliyeed dhurwaa bahalka la dhoomo cunaan waa ninkii dhurwaaga xalaaleeyay markaasaa Kismaayo waxaa dhacday ya gobolada Jubbooyinka in la qasho dhurwaaga baa halkaa lagu qashay wuxuu ahaa shiiqi koobaad oo bahalada kala cuno xayawaanka iyo dhurwaagu hadduu dad kala xitaa arko wuu cunaa xalaaleeyay ayuu ahaa markaasaa la qashay runtii halkaasaa lagu qashay oo ummadda Soomaaliyeed haddii ay dhurwaa cunayaan maxay doofaar ku diideen doofaarku bahalka lama cuno dadka lama cunee hala weydiiyo Sheekh Umar maxaa doofaar ku diiday asaga su'aasha u geeyeen ma adeer amiin dhageysanaya laga yaabaa dhurwaagu wuxuu cunaa dad xoolaha kalena wuu cunaa
bahladana wuu cunaa xayawaanka wuu cunaa waxaan ka wada dadkana wuu cunaa markay u suurta gashaan qofku meel ka helo kaasaa loo xalaaleeya markaasaa la qashay oo wuxuu usoo dilidsaday carabtu way cuni jireen asagu waa iska carab oo dhoogadiisa madow laakiin xagga caqliga carab buu ka yahay odagu soomaali ma aha laakiin waa waxaa ku caddaynaya suu labisan yihiin suu hadlaya waxaas ayaa ku tusinaysa waa ninkii wasiiraddii xusmad darro iyo sharaf darro meeshu ka gaaray maryan qaasin oo maamulaysay wasaaraddii loo magacaabay inay aruuriso masiibooyinka dhaqaalaha iga raali ahaada masiibooyinka inay lacagihii aruuriso xilligii abaaraha badan iyo balaayada soomaaliya ka dhacday waa ninkii inta gacan dhaafay asagoo u arkay inay naag tahay waxna maamuli karin yasayana ka daba wareegtay oo u tegay maxaa la dhahay ra-iisul wasaaraha iyo ragga oo lacaguhu soo aruur haddee waxaa jira system loo maro mar asagaa wuxuu aaminsan yahaba dowlad la soo afgabiyey oo tuugaa dalka inay maamusho marka intuu gadaal ka maray wasaaraddii dhan iyo maryan qaasin ayuu lacagtii wuxuu ku wareejiyey maxaa la dhahaa ragga isla ahaayeen oo ninka isla aaminsanaayeen ayuu ku wareejiyey asagoo hooyadii soomaaliyeed halyeydii yasaya oo naagnimo u daraabaya markaas haddana marka layidhi war maryan qaasin dartaaba isku casishay maxaa la dhahaa wadaadada meesha ka tuuray buu yidhi hadday rabto kasta carruurta in dadka laga soo aruur inay cunto dee ha iska tagta naagta hadalladiisi baa ka mid ahaa waa sac weeye ninkan waa nin aad doqon u ah weeye runtii waayo fiiri xushmad xitee kuma haystaan gabdhaha xitee xijaabka qaba oo diinta u halgamaya oo xitee aaminsan korkooda inay cawro yihiin anugu maba aaminsanin korkaygu cawro yahay ayuu saa u bahadilay ninkaasu uu bahadilay aad buu u bahadilay gabdhaha soomaaliyeed iyo hooyooyinka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed haddaa wax ku dayanaysaan waxaa u baahantihiin inaad ku dayataan ama aad wax ka maqashaan wadaadadan maxaa la ahel sunna oo siduu dalku ahaa lagu soo celiyo berigii hore oo nimankan maxamed yaasiin bal ninkaas ay soo wacaya fiir doqon suu u yahay anoo leef ku jira meeshuu ka soo wacay laakiin waa internetka mobilkii beef computerka halkaan uu iga daawanaya alla maxaa dadka dhibaato haysata marka wadaadadii kuwaasaa u dhaamay waxbay dhaamaane waxaa dhaama kuwa maantay odagaan maaragtay kaarkii gaalnimada siiyey wax badan buu dadka gaalaysiiye kuwaasaa dhaamo nabad iyo waxbay ummaddu haysatay dowladnimona way ogol yihiin dastuurna way ogolka odagaan ku haya xagga samada wax laga keenaa dadka lagu maamulaya oo doorasho ma dhacayso dadku isma dooran karaan bal wuxuu noo keena anaga fiiri shareecu yiro shareeco shar u dhimo dheh xubnaha baarlamaankana waxaa la yidhahdaa golaha sharci dejinta xalaalayn iyo xaaraamayn isagaa sameeya shuruucduu goluhu dejiyana shacabka lagu xukumaa innaga diinteenna markii la yidhaahdo xalaalayn iyo xaaraamayn yaa iska leh ya allah baa iska leh soo ma fiiri marka wuxuu yidhi golaha shacabka waxay dejiyaan baarlamaanka xalaalayn iyo xaaraamayn bay dejiyaan golaha shacabka waa run waxay dhisan baarlamaanku wuxuu u dhisan yahay inuu sharciyo soo saaro sharciyadii hore hadday wax ka qarimanaan hadda dastuurka maxaa la dhaha qodobka 4.5ka waa in wax laga bedelo dad baa lagu dulminayaa qodobka kale oo ana haweenku 30% inay ama qoonda la sameeyo waa in wax laga bedelo oo ragga iyo haweenku waa inay si siman u soo galaan baarlamaanka sanadada soo socda waxbaa laga bedelayaa waxaa ninkaale laakiin ilaahay baa wax xaaraantinimay oo xalaaleeya ilaahay manina uu soo diriyo ummadda Soomaaliyeed oo hadda dhahaya waxaan baa xalaal ilii ah iyo waxaan sameeya iyo waxaan baa inii fiican war dadka Soomaaliyeed walaalayaal aqliga intaan ka shaqaysiino nabina inoo imaan mayo cidna cilka ma soo adimayse raggaan oo kale oo marna dhahaya sawirku maanta naftada saas ku dhigayo oo maxaa la soo kala qabanaya maalin isbedelaya uma baahna dalkiina matalaan iyo dadka waxna u sheegaan waxna laga dhageysto waxay u baahan tahay dawladda inay hore u socoto formaajo iyo maxaa la dhahaa khayre iyo baarlamaanka Soomaaliya gabigoodba hal mid baan leeyahay dadkii shalay dadka duurka geliyay oo dambiilayaal weeye runtii waa dambiilayaal maalmaha ka midana ereyga hadda ka horna waan iri
maxkamad baa sugi doontaan Sheekh Umal iyo raggii ummadda Soomaaliyeed iyo Xasan Daahir Aweys ragga maalin baa maxkamad la keeni doona hadday sii noolaadaan waayo afkooda ayay dadkii ummadda Soomaaliyeed ayaa dartood isku laysay ma garateen walaalayaal dartood baa kumaankum qof u dhimata soo anagu doqoma ma nihiin wixii naga dhintay dadka ka dambeeya waa in lala xisaabtama maalmaha ka mida oo inta miiska la soo fariisiyo la dhaha wareedhe dadka maxaa ugu fadwooteen oo u gaalaysiiseen waa in la wareystaa marka waa in saa la sameeyaa oo la wareystaa soo wuxuu ahaa Sheekh Umal oo kale qoraagii weynaa oo Cabdisiciid oo buuggii xadka ridida sameeyeyna ninkii wuxuu ahaa gaalaysiiyey magaalada Nairobi oo yiri murtad weeye buuggana yaa la akhrisan oo hor fariistay allah muxuu maalin ummadda Soomaaliyeed soo warjaafay ninkan maaragtay hagoogane hoo kuu dambeedhe ninkaas waxaa la leeyahay intuu Muqdisho tago bac qaaday uu ummadda hor kacaya dhiigi cabka oo dadka maalinba mid ila soo qalo ku soo taliyay walaalayaal waxa u baahan tihiin runtii ehlu sunna way ku mahadsan yihiin inay dhiigi cabyada wadanka ka ceeliyaan sharaf bayna leeyihiin ay dhahan bax ka tag haddaad dhibaatidna sidaa dadku ugu fadwootay baa lagu fadwoonaya lagu dilayaa runtii ammaan bay ku mudan yihiin dowladda Soomaaliya ma ahayn inay waxaan oo kale intay u yeertaan la hadlaan waxay ahayd inay u gaabiyaan faynuusta oo dhahaan ee caqliga ku ogaadaan maalin in lala xisaabtamayo runtii farmaajo way ku ceewoobeen hadday ixtisaam Sheekh Nuur Baaruud iyo maxaa la dhahaa raggiisa Calawajiis iyo raggii dadka shalay gaalaysiiyey oo ummadda Soomaaliya loo leenayo Sheekh Umal iyo ay u yihiin maxaa la dhahaa u khidmaynayso dowladda baa u khidmaynaysa dadkeeda laay u khidmaynaysa ad wax laga xumaado weey oo wax laga xumaado yey dowlad u tahay marka bal yaa u tahay dowlad haddii dadka shalayna laayay oo ilmaheenii iyo caruurteenii laayay oo baabiyey oo qarxiyey yey dowlad u tahay ixtisaam raggay maanta u khidmaynaya yey dowlad u yihiin adigaa ina weydiinayaa warnaa heerow forbaajo war khayrow war waxaan waxba ka dhegaysanina fila Soomaaliya ha laga ceyriyo maxaa la dhahaa ii sheeg Calawajiis iyo Sheekh Nuur Baaruud iyo uma qalmadaan inay ummadda Soomaaliya hor yimaadaan ayagoo maxkamad la keenin dadkay shala gaalaysiiyeen ayaa dadkay dileen oo afkooda ku dhintay baagood ku jira dhiigoodii baa sii qoyan uma baahna haddaad dowlad tihiin oo caqli leedihiin raggaa ha noo keeninina haddaa codka shacabka ku imaateen iyo baarlamaanka waayo maalin baa dhacaysa annagoo aan codayno waxaan u codaynaynana waxaa weeye waxaan u codaynayno waa waxna matala hadalkiisaan Sheekh Umal ma soconaayo wuxuu u soconayna tusaale waxaan kaga soo qaatay marxaladiis bedelkii shalay maxay aaminsanaayeen sawirka inaan xaraam inuu yahay ayay aaminsanaayeen ma garateen ilaa maanta ilaa hadda Sacuudigu maxay isku hayaan gabar ilaa dadku way safrayaan gabdhii way niqaaban yihiin gabdha niqaaban bay Sacuudigu ku ooli jiray maxaa la dhahaa baasaboorkooda gabdhaha wajirka bal qof masgaraati waa qofkee maxaa laga garanayaa heerkaas uu rabo inuu ummadda geliyo oo god uu qodo god ayna ka soo bixin laakiin waxaan uga soo baxna silic iyo saxariir iyo halgan dheer halgankaasaan waxaan rabnaa inaan sii wadno haddaan ummadda Soomaaliyeed nahay dowladdana anigu ma aha inaan leeyahay laga soo horjeesto dowladda hala taageero laakiin dowladdu maanta ma baahna raggaan oo kale ah inay raggaan oo kale wax ka dhageystaan uma baahna dowladda Soomaaliya walaalayaal hal wadaad baan dhageystay oo runtii aad iyo aad u qiimo badnaa oo ehlu sunna baan maanta dhageystay ereygu yiri aad buu u qurux badnaa waana runtiis waana ku raacsanahay dadkan waa dambiilayaal hala xisaabtan waa laakiin wuxuu dhahay war maanta dadkii way kala duwan yihiin diintii islaamka firqooyin badan bay noqotay haddii wax lagu kala duwan yahay iyo aragti yaan la islaynin ereygaas buu ku dhawaaqay ereygaasaan ku celinayaa in doqonkaan la dilana uma baahna dadkan in maanta naga dhintaan uma baahna waxay u baahan tahay laakiin asagoo la dilin in laga hadlo siyo la dhaho war dambiyadaa gashay ma ogtahay war maxaad ummadda Soomaaliya u geysatay war fadwooyinkaaga shalay ma xasuusataa adeer imaamad guduudow ma ogtahay kumaangum qof naftaada hadalkaaga inay u nafooyso ma ogid
inaad tiri ilaahay dhig ha loogu dhawaado ha lagu caabudo sooma ogid dowladdii inaad gaalaysiisa ammaan taageersan tahay sooma ogid in la dhaho oo lala xisaabtamo wuu mudan yahay waana la gaarayaa laakiin tan uu wadaadku leeyahay dadku way kala aragti duwan yihiin diintuna waa lagu kala aragti duwan yahay waa run oo diintii maanta islaamkii firqooyinkooda ayaa batay wadaadkaas magaciisaan aqoon wuxuu tusaale usoo qaatay masar inuu tegay wuxuu dhahay masar masaajidkina waa laga adimayaa masaajidka u dareerayaan kaniisadina halkaasay maxaa la dhahaa bahasheeda gargaraacaysaa dadka kaniisadda rabana way aadayaan nabadna way ka jirto ummadda soomaaliyeed marka wuxuu kusoo gabagabeeya hala isfahmo haddii lagu kala duwan yahay ee fakarka iyo aragtida oo si aad u qurux badan oo dadnimo leh oo damiir soomaaliya ay ka muuqatay oo dadka uu tiriyay dhiigooda maanta inay sidai ay sameeyaan ixtisaam mar kale dagaal la sameeyo iyo balaayo uu ka digayay ayuu runtii sameeyey oo gobonnimo aad iyo aad u leh ah guntii iyo gabagabadii mawduucayga aan uga hadlaya maanta sheekh umal iyo maxaa la dhahaa fadwooyinkiisii uu ku gaalaysiiyey bal wax yar baan dhegaysiinayaa wuxuu ku gaalaysiiyey wixii ka mid ahaa wax yar ii kaadiya waxaan rajeynayaa inaan helo ولي قف baa soo geliyay qof hadduu ii soo dir lahay fiican axmed uma haysaa qudbooyinku u gaalaysiiyey dadka meel baa ka arkay meesha ma xasuusto mise qofku soo geliyay qofkee buu ahaa dalmar mise mubaarak qof buu ahaa qof hadduu ii soo dirniyo waxaan haystaa meel kale haystaa axmed yaroo i caawiyo qof ha i caawiyo ama asxaabtayda qof hadduu i caawin lahaa way fiicnaan lahayd intaa sii raadinayo uu luuqa igu soo diro ma haayo laakiin ma arko waxaan tusi lahaa inan baa arkaya qof soo geliya arkaya soo fadwooyinkii ugu gaalaysiiyey weeye bulkaadi dalmar baa ka fiirinaya meeshiisa ورا أحمد يروح مين مغشى والله قديك تروح دوك ودرنا انتراي بلداي وداتكي وكاسي دبيشاي يا waan la ahay ilaa hadda qof ii soo diray lukaad tan muxuu leeyahay oo tawxiidka ka shakiday oo malaa'igta ka shakiday oo ma taamir taas ma rabin waryaahaya markuu dadka gaalaysiinayay 2000 iyo dadkii daawanayay yaa haya hal mar khudbadaas wandiya meel baa dhigay laakiin ma aqaan meeshan ku xiray khudbadii uu leeyahay fadwadii uu ku gaalaysiinayay 2016 umal saaxiib yaal ma haysan ii soo diro qofka hayo بلوكادي هذا حسست ماشا كاركي وارا
يسود رداه صاحب مرة مية هيا اوكي waxaa ii soo diray aad baa u mahadsantahay garaad wilwaaq baa ii soo diray okay waa tanaa marka waa raadinaya tanaa isku daga dalaga gura meel la isku hadana ka gura war isu ka qaban mayse sidii u kala muhiimsan tahay intaad fiiriso waxaad fiirisaa un xageed diintaada ku badbaadaysa inta kale fiir xageed diin ahaan roon xataa haddii boqolkiiba boqol aad diinta weydo meeshee baa roon fiiri gaalada la degideeda waa taa laga dayriyey qur-aankuna waa ka dayriyey nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu dhul helay hijradu waa kii la yidhi saxaabadiisana waa loo diiday inay gaalada ku dhex noolaadaan xaaladaasoo kale markay timaado muslimiintu ay mahjar helaan meel ay u hijroodaan ama dhulku suu isu dhaamayo helaanna waa laga marmaan waxaa ka mid ah muwaalaadka gaalada waxaa ka mid ah inaad madaahibtooda qaar ka mid iyo afkaartooda aad saxdo ood u doodo oy kula qumanaato waxaa ka mid ah in aad intaad soo raacdo muslimiinta la dagaalanto intaad soo raacdo ood garab ka dhigato inaad muslimiin ku soo duushood la dagaalanto taa iyadoo waa xaalad kufri iyo gaalnimo ah iyadoo xaaladaasi waa riddo waay wadaadada qaar baa damcay inay wax u lusluusaan wax u raaraadiyaan oo yidhaahdaan maya xogaa kursi unbaa haya mooye ruux ma gaaloobin kursi doon un weeye sheekh kadaa dadka khawaarij aan noqonin mid wuxuu ku leeyahay maya meesha waxaa gashay uun dee sidii uun laysu hayshaystay bay meesha la gashay mid wuxuu ku leeyahay maya waa jaahil war waxaasi wax jira maaha kullu dalika waa xaqiiqa aan jirin warka in si dhaba loo qaataa wuxuu yahay ninkii gaalo soo raaco muslim la dagaalamo waa murtad diinta si maaratan horta wuxuu leeyahay ma dhageysanaysaan ninkii gaalo soo raaca waa murtad wuxuu ka wadaa marka waa dowladii hore ereyga markuu leeyahay waxaa kaloo ka daran doqon suu u yahay wuxuu leeyahay wadamada gaalada lama dego wadankuu degan yahay asagu shuqumal weligii deganaa yaa iskale muwadan islaamba waa Kenya waa Nairobi waa wadan kristan ah islaam ma ahan qofku markuu aqliga uu meel ku xiro sanduuq ah ma oga xitaa meeshu degan yahay loobaya ma garanaya meeshu degan yahay marka wuxuu leeyahay ku jirta hadalkiisa dhageysanayseen wadan gaali la dega ma aha haddana asigii baa degan ummadiina wuxuu ku diray nacayb uu dhex dhigayaa ummadda Soomaaliyeed intay wadankii uga soo qaxeen ayaga ba waxay wada degan yihiin wadamo aan muslimiin ahayn bay ku nool yihiin oo soo dhaweeyay wani qofku inuu nacayb ka bato ma fiicna moogtaa fiira marka in lala dagaalamo iska dhaafi meel alla meesha lagu arkaa lagu dili karaa marka istiidaana la weydiin maayo dilkiisa idan laga weydiinayo ma jirto ilaahay baa fasaxay subxaanahu wa tacaala in la dili karo haddii la dilana muslim ahaan loola mucaamaloon maayo lagu tukan maayo qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo sidaa markuu yahay naag muslimada ma qabi karo waa murtad gaal oo kala loola dhaqmayo bal sida uu leeyahay sheekh islaam ibn taymiya alayhi rahmatullah gaalada asliyiinta ayaga ka daran buu leeyahay gaalada gaalnimadooda asalka ayaga ka daran ahkaamtu xuduuday ka dajisayna waxaa ka daran murtadiinta ahkaamta laga dajiyay baa aad uga adag ahkaamta loo dajiyay gaalka asalka inaga laakiin dhibaatadana Soomaalida waxa weeye maqaayista inaga khaldantay baa waxaa ka mid ah in la yiraahdo Soomaaligu ma bagaaloobo waa Soomaali baa lagu leeyahay ma Soomaali sheekh fiiriya ninkaas wuxuu yiri meeshii lagu arko waa lagu dilayaa buu yiri meeshii lagu arko gabdha muslimana ma qabi karaan waana murtidiin wax walba oo sidii meelay ku badbaadin ninkaas maanta wuxuu sameeyay intuu hagoogtay gabsaar noo xirtay ayuu wuxuu agtiray dawladii Farmaajo oo shalay dadka hada dawladdu waa tuu shalay gaalaysiiyay way aqligu alla aqligu aku doqon waa doqon moqti dawladdu shalay gaalaysiiyay oo yir dadka halalaayo oo wixii la shaqeeyay waa murtidiin oo meesha lagu arkaa lagu laayo waa dastuurkii lagu soo maamulay ayay waa isku sharci waa isku dhaqan ciidamadii wadanka kama tigin Itoobiyaanka ahaa ee Amisonkii iyo ciidamadii Afrikaanka way joogaan Soomaaliya waa ka way sii joogi doonaan waxa laga ilaalinayna dawladda waa dadkii uu asagu qoriga u dhiibay weeye markaas wuxuu naga dhaadhacsiinaya fiir su'aali la weydiinay waxa jirtay
mid kaloo su-aalo lagu weydiinayay wuu inkirayay xigtee wadaad ninbaa wuxuu leeyahay soodigi shala sidaa yidhi markaasuu leeyahy goormaan idhi isma oga ismana oga aqalkii bay aslaysaa alla yaa u sheega ismooge yaa ogeysiiya ismooge ismana oga war iskama hayo ma garateen annakii oo taagan oo fideogiisa hayna buu inkiraad dhac inagu siiyey adeeroo maxkamad baa ku sugaysa yaa maxkamad baa ku sugaysa way wallo ummaddii aadlaysay inaan sidaa lagugu dhaafay waa dhiigooda xalaalaysay maalin uunbaa cadaaladda hor imaan doontaa okay so raggii uu al-shabaabkii naftirkoodii uu duurka geliyey oo maanta dagaalamaya qoriga wata oo dadka laynaya ayaa waxay sameeyeen fideoyaashii soo diyaariyey markaasay waxay dheheen shalay saan buu lahaa maantana saanu leeyahay alla ninku muxuu alla ummadda soomaaliya sidee buu u gala balukaadiya marka waxaan intusayaa al-shabaab naftirkooda fideogiisa keenay baan rajaynaya inaan helo balukaadi kan inuu yahay umalaynaya oo iska qureen ayaynu hadda haynaa nebi maxamed masaajidkiisa dhexdiisa injir baa dadka fuulaysay mas'alada nebi maxamed nuur buu ka samaysnaa waa khuraafo nebigu wuxuu yimid dad reer ama dad meel degan meeshay qashinka ku shubtaan oo ku daadiyaan buu soo istaagay markaasuu isagoo taagan nebigu kaajay salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo taagan buu kaajay markaasaan ka fogaaday buu ii soo dhowow buu nebigu sal alay wasalam ilaa aan gadaashiisa soo istaagay nin taagnida ku kaajayo oo ku kaleedhinaya سؤال ما يطقن قال ما يطقن نبي محمد كما في الصحيحين بخاري ومسلم waxaa la yaab leh suu qoslayo iskula fiican yahay horta xerta ahlu sunna naftirkooda fiiri waxa cajiiba horta arrintaas oo inta tan lagu haysto gaalaysiintii iyo dhibaatada hore u geeyay ma ahan laakiin waxay ka xanaaqsan yihiin asagu wuxuu akhrinayaa waa xadiis ahlu sunna waxay leeyahay xadiistan ma jiraan oo ninkaanu nebigu wacaayaya marka waa saas daraadeed waa gaaloo dhiiggiisa ayaa bannaan mayla garateen horta ilma adeerayaal ma isla garanaa yaa wax yar ii kaadiya laakiin ma aha inay u dagaalamayeen ummadda soomaaliyeed oo uu gaalaysiiye hore laakiin taas dad badan baa u hadlayaan oo aan ku jiro waana arrin runtii aad iyo aad loogu qoslo in arrintaas odagaas uu maanta uu muwaadin iska dhigayo soomaaliya uu ku dhex jiro waxaan filayay ma ahayn waa arrin laga xumaaday oo aad iyo aad looga xumaaday bal waxaa fiirinayaa waa inii soo gabagabeynayaa waxaan rajeynayaa inaynan igu caajisin waxaa ka mid ah in aad intaad soo raac gaalada gaalnimadu asalka ayagaa ka daran axkaamtu xuduudday ka dejisayna waxaa ka daran anyway waxa waye ninkii waa kaasaa waa inii sheegay sheekadiisii waxay ummadda soomaaliya marka waxay u baahan tahay oo inkugu soo gabagabeynayaa waxay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed inay istaageerto dowladdana taageerto dowladduna waxay u baahan tahay nimankan midiyaha hoosta ku wata inay iska ceeriyaan uma baahna hadday wadaado ummadda soomaaliyed matalayaan xertii digrin jirtay oo iska fiicnado soomaalida iska qabowaa hilibka laga cuni jiray raggaa meesha ha geeyaan filla soomaaliya oo ayaga waxa laga dhagaysto sidaas baan anagu ku talin lahayn haddaan nahay dadka soomaalinimada aaminsanna in dastuur waddanka lagu dhaqmo umana baahnin waxa la dhaho shareeca iyo wax la shuuteeyey iyo wax carab laga keenay dastuurka iyo maanta waxay soomaali samaysatay ha lagu dhaqmo wixii laga bedeli karna ha laga bedelo dimuqraadinimadu ha guulaysato sidaas baan idin leeyahay walaalayaal runtii
odagaana dhulka u go'ay oo waa halkii uu cali dhuux uu gabaygu uga tiriyey odagii markuu jabay qof ku dhibo markuu jabo dee waa iskaga farxaysaa dhurwaa liqe ninka dhurwaaga dadka cunsiiyey walle balaayaa ku dhacday inkaar baa ku dhacday war dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa heeska axmed saki intii ugu dambaysaan kuu soo gabagabeynayaa mawduucayga intaas biiga ahaanayaa birtolo waa maalin shaqo heeska saa wada dhegaysanaynaa jiro calankeenana yaa jiro inagu jilib ma nihin jasyo qora uma degelin jifiyo waxaynunay jirid mina dhalisayo oo jirka isku keen dambada inagu jilib ma nihin jasyo qora uma degelin jifiyo waxaynunay jirid mina dhalisayo oo jirka isku keen dambada jira calankani yaa jiro calankeenani yaa jiro ajira calankani yaa jiro calankeenani yaa jiro jaliilkaan ku barye cadowgeennuna jiro jabutay loo kuda ele jabutay loo kuda ajira calankani yaa jiro calankeenani yaa jiro ajira calankani yaa jiro calankeenani yaa jiro jaliilkaan ku barye cadowgeennuna jabo jabutay loo kuda ele jabutay loo kuda hadba lagu helo jidka loo maray xornimo dadbaa ku dhalooga jaray hadba lagu waaye jeel jabdagton cidibahay hadba lagu helo jidka loo maray xornimo dadbaa ku dhalooga jaray hadba lagu waaye jeel jabdagton cidibahay Soomaalida noo ballan calankeenani yaa jiro Djibouti waa islaamay sigooreeyay qaabkii Soomaaliya calankeenani yaa jiro jaliilkaan ku barye